Assalaamu calaykum. Qof kasta oo inaga mid ahi waxa uu jecel yahay inuu gaadho guul oo uu noqdo mid ka mid ah dhaliya waxa uu rabo inuu helo ama meesha uu rabo inuu gaadho maalin maalmaha ka mid ah uun. Haddaba waxyaabaha fududeeya inaad guul gaadhaa waxay yihiin: 1. Fahamka nolosha. Inaad fahanto nolosha aad ku dhex nooshahay iyo sida ay u socoto waxay kuu saamaxaysaa inaad si fudud u gaadhi karto guul. Waayo wax kasta marka la fahmo ayaa xalkiisa la heli karaa. Si gaar ah inaad u fahanto noloshaada ku gaarka ah adiga iyo hanaanka ay u socoto ee aad u nooshahay adigu. Siiba qaabka aad farciinta uga samayso ama aad u abaarto waxyaalaha saameynta kugu leh. Noloshaadu waxay jaangoynaysaa natiijada iyo maxsuulka kuu soo baxaya. Noloshaada oo aad fahantaa waa qayb ka mid ah guushaada adduunyo iyo ta aakhiraba. 2. Dhiirigelin. Dhiirigelintu waa halka ama shayga kaliya ee kugu dhaqaajin kara hawsha aad qabanayso. Haddii aanad dhiirinayn awood uma lihi inaad si niyadsan oo xamaasadaysan u qabato hawlahaaga aad ku guda jirto amba aad rabto inaad qabato. Dhiirigelintu waa shidaalka qof kasta u saamaxaya inuu ku gaadho hankiisa kuna bislaysto midhaha guushiisa. 3. Qorshe. Qorshuhu wuxuu kaa caawinayaa inaad hawlaha u qabato sida ay u kala mudan yihiin, una hawlgasho sida ugu fudud uguna wax soo saarka badan leh. Qorshe la'aantu waxay ku baddaa dhabarjab iyo khasaare, mararka qaarkood kugu keeni kara niyad jab aad ka soo kaban kari weydo. 4. Samir. Samirku waa waxa kaliya ee kugu sii hayn karaya xaalad adag oo qalafsan oo aad kala kulantay hawl maalmeedkaaga adduunyo. Inaad sabirtaa waa astaan ka mid ah astaamaha qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu ku dhaqmo oo uu fuliyo si kasta oo ay xaaladdu ugu adkaato, carqaladuhuna u soo waajahaan. Inaad sabirtaa waxay ku dhaxalsiisaa inaad rajo dhigin oo aad socoto ilaa aad ka gaadhayso ama se aad helayso halka ama se waxa aad rabto. 5. Joogtayn. Joogtayntu waa waxa kala saara guulaystayaasha iyo guuldareystayaasha. Guulaystuhu markasta oo uu go'aan gaadho waxa uu ku dadaalaa inuu joogteeyo waxa uu go'aansaday inuu qabto ilaa uu ka midho dhalinayo. Halka guuldareystayaashuna marka ay isku dayaan inay wax qabtaan aanay sii joogtin ee ay ugu badnaan kaga hadhaan meel dhexe. 6. Dad la dhaqan. Dad la dhaqan inaad yeelato oo aad dadka kugu xeeran si fiican ula dhaqmi karto waxay kuu saamaxaysaa inaanay dadku kugu noqon carqalad ee ay noqdaan kuwa kula garab gala kuguna caawiya hanashada heerka aad doonayso inaad gaadho. 7. Wax akhri. Wax akhrisku waxa uu ka qayb qaataa in qofka heerkiisa garaadeed iyo garasho ay kobacdo. Qofka uu ka wax akhris badan yahay xogtiisa uu hayaa waa ay ka badan tahay ka kale. Wax badan akhri, wax badan ayaad ogaane. 8. Ilaahay tala saarasho. Inaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saarato hawlahaaga adduunyo iyo kuwaaga aakhiraba waxay kuu sahlaysaa inaad noqoto qof mar walba ku xidhay Ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisa oo dhan. Aaminsan inuu Ilaahay yahay ka noloshiisa gebi ahaanteedaba gacanta ku haya. Sidoo kale inaad tala saarataa waxay kaa dhigaysaa mid guul ku gaadha noloshan iyo ta aakhiraba. Ilaahay baa Qur'aanka inoogu sheegay in qofkii tala saarta uu ku filnaan doono kana dabooli doono baahiyihiisa oo dhan. Wassalaamu calaykum